Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Ladies and gentlemen, are you ready? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان waxaa ku saabsan yahay English history waa sheeko English about ku saabsan the Unkind King Boqorki Naxarista Ahaa Boqorki Bila Naxarista Ahaa ayay sheekadani ku saabsan tahay ila socardayo together please. Once upon a time xilliyada kamida there was Unkind King waxaa jiray boqor bila naxariis ah who ruled kaasoo xukumayay in a small town tuulo yar for many years sanado badan. The population lived dadkii ku noolaa in the small town tuulada yar were very small in number tiradoodu aad bay u yareed because maxaa yeelay the king refused boqorku wuxuu u diiday them iyaga to marry inay isguursadaan and get more children caruur badanna ay kala helaan because maxaa yeelay he didn't have any children wax caruura muu haysanin isagu. The people were hungry dadku way gaajoonayeen because maxaa yeelay he didn't give them food cunto muu siin jirin even xitaa they were ignorant waxay ahaayeen jaahiliin because maxaa yeelay he didn't teach them anything waxba muu bari jirin iyaga. He imposed them waxa uu ku soo rogay heavy tax cashuur badan ayuu ku soo rogi jiray whenever markastoo they got ay helaan good crops dalag wanaagsan ama midho wanaagsan markastoo ay helaan cashuur badan buu ku soo rogi jiray from their farms midhahaasoo ay ka helayaan beerahooga. He punished them wuu ciqaabi jiray mercilessly si bilaa naxariisa and forced them waxaanu ku qasbay iyaga to work inay shaqeeyaan long hours saacado badan in hot days maalmaha kulul and cold nights iyo habeenada qabow. Anyone qof kasta who tried isku daya to refuse his orders inuu diido amaradiisa he was beaten uu garaaci jiray until to death ilaa iyo intuu ka dhimanayo qofkaasi. The population lived in the small town dadkii ku noolaa tuuladii yareed could not bear umay dul qaadan karaynin the Unkind King's awful action ficilada xunxun ee boqorka bila naxariista. So sidaa daraaddeed they called for waxay iskugu baaqeen waa bulshadii a meeting shir ama kulan so as to leave say u tagaan to another neighboring small town tuulada kale ay jaarka yihiin was ruled tuuladaasoo xukumayay kind king boqor naxariis leh and educated aqoona leh. Okay, halkaas bay sheekadaas inoogu dhammaatay. New words waa ereyada cusub aan ka soo ururinay sheekada Unkind Bila Naxariis population bulsho refused diidid hungry gaajo ama baahi ignorant jaahil imposed ku soo rogid good crops midho wanaagsan dalag wanaagsan punish ciqaab mercilessly bila naxariis forced qasab refused diidid orders amaro heavy tax cashuur badan peer dulqaadasho neighboring jaar beaten garaacid awful ficil xun educated aqoon leh.